السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماني وناكسن صاحب بيال دو إلهي دهدو waxaynu soo gudbin doonaa ama aynu kala dhigdhigi doonaa ama aynu qaada dhigi doonaa maamaahyadii Soomaalida laba kamid ah waxaana daba gunud uga dhigi doonaa sheeko khatar ah oo arrin khatar ah lagu maareeyay si qurux badan loo dhameeyay xagga damaad ka maali doontaay hamogaani maahmaahda koowaad waxay ku leedahay rag dareen moog iyo waraaba urmoog wadkooda hortii bay dhintaan. talabaadna waxay ku leedahay qof aan garanin waxa soo socda ma garto waxa jooga. aynu ku noqonatii hore rag dareen moog markii la leeyahay bil aadan oo dhan baa loo jeedaa ragga maawan rag iyo dumarba waa loo jeedaa oo waxa weeye تعبير جزء وإرادة كله يعني شركة جزء كمية هدي الله شيء أصور نبى لو شيء ذوي تصالحان وحاتري وحي ماشي يلا ردن أكتر مريء تجسد كده أن عملها إندلها دجالها لقوا لها أيها حلو كسوق عادي إنه حاتري وحي ماشي يلا ردن بأكتر مريء maxaad u jeedaa wixii meesha yaalo dhan waan ururiyay ama waan dhameeyay ama waan hagaajiyay marka hadee lagu xuma hagaajisay jasadka dhan baa loo jeedaa way oo aanaha gacmahaygii iyo lugahaygii iyo indhahayga wax dhan baa diyaariyay way sidaas oo kale weeyaan oo rag markii la sheegayo bil aadar dhan baa loo socdaa marka waxaan dhigi karaa dad dareen moog oon dareen lahayn iyo waraaba aan ur lahayn wadkooda hortii way dhintaan. ma jira wax wadkiisa hortiisa dhinta maya laakiin ihdaru qabla alwuquucdi weeyaano intayna wax kugu dhicin digtoonow baa loo jeedaa. haddaan noqoto qof iska dhaboolaqa iska socdo aan wixii la siiyana iska cuno ama iska cabo wixii loo sheegana iska qaata marka dambe waa iska hoggaansan Sooma khatar ba kama bixaysidba marba hadda dareen wax fahmaba aadan lahayn تساعد أوجب بدبادي بخطرة ده دمني حتى وضر فادي بصومة وحويري شمبر دولس بدنا وهدا دقي أقوم ويدو مرء بعد اللي بح لبدي دان دلق تراهدا ورم ها ده استاجي بويدو مرة بالله يحسب كساو كلاينا بحرة أفكي سيبه اللي هو دولس أمي استاجي سيدي هذا هو حاول دخس بدنا دول تانك أوجب بدنا بحر دخسيجا انت أول كل عيا وادرين الآن هدو درين الله يا وسكيل على لها شاه كلول إيو فوتك كلول وحاسو وده جراه وكلم شبدان يهدو لها كله مركا قفصن درين لهين ده خطر كما بحكارو ورابوه نواسد أو كله وحا أوجود درين ليتين درين كلهين ما تقعنا ودواعدا دواعدنا دبين كسول لديكو أو ورابك على الله ديكو كل يكون عداون نن دبين عمر دكتيادا وحوين بدي ما سمعي عادي يحوي حاجة تاون عن تاون لكن رواقة اللي بح يدبنا الله ديو حتى كوا وقعد الله ديو بيدرق ده صابت معي تاي أوركيا وحكور هذه اللي هيد أو وحكور فهم اللي هيد ملها صادرتين دكين يسا دبن كستو الله ديو بين يكون هذا صح ما تا عندك يقول منه طلبات وحلو يدي قفان قرني وحصوص عدا وأن سادالين كرين waxa joogana ma garto oo qofku moorku baala maya saadaashu waa inaad fahantaa qofka waad salaan qof baad iska hortimaadeen wajigiisa eeg waxa laga yaabaa asoo uurku gubanayo oo raba inuu naftaba ka qaado inuu ku qoslo laakiin wajigiisa dad si fiican u feeriso haba isdiidaan yani haba celiyo oo haba qariye hadda si fiican qofka wajigiisa u eegto wad baa kaaga muuqanaya iyo dhibaato هذا عقل الله لهي مركب واتفهمي خطرت صوص عطا تصالحان ربع صوم كذا يركي والدم هاللعبة بكتها هي حال قيمين يساعد الرب وين ده هيو كنا سو قاري كرو واحد مركز اسكت يمالها بيها أي جليان إعدادكم مرة يمالها مارتي ليقضى لأنك فوقاته والقياس يساعد
sidaas oo kale qofka aad la hadlayso ama goobta aad joogto waa inaad qiimaysaa khatarta dhalan karta haddaadan khatarta marka soo socota iyo waxa imanaya aadan qiimeyn karin hadda waxa taagan dhex taagan ma qiimeyn karaysid waxa la rabaa inaad digtooni ku jirto oo waxa soo socda horta inaad saadaaliso waxaan hadda waa saddex joogtaanba hadda waxaan waa saddex joogtaan oo laga tabaysaan laakiin waxa sii daran waxa soo socda labadana waxa sii daraan doona waxa soo socda marka waxa la yiraahdaa biyo intayna ku soo gaadhin baa la iska moosaa wax kasta oo marka aad hayso xalkiisa waad helaysaa oo dhex joogtaaba laakiin wax kasta oo soo socda digtooni mu kaaga baahan yahay مثل dad baad u timid amaba ku yeedhayba amaba iyagu ku yimaaday dadkaas ka hori la sheekayso inta la sheekaysanaysana wajigooda fiiri su'aalo badan weydii oo kala duwan khatarta waxay u baahan tahay diyaar garow waxay u baahan tahay difaac waxay u baahan tahay fikir iyo ilaashimo laakiin haddaad fahmi weydo waxa soo socda saadaalin kari weydo qiimeyn kari weydo waxa markaa taaganna ma qiimeyn karaysid mana fahmi karaysid ba laana maxaa yeelay qof wax roogi kara matid waqtigu waa 3 wax tagay tigsimaad ma la yiraahdaa laakiin cimri qaadashu kaaga baahan yahay wax tagay wax jooga hadda wax qabasho kaaga baahan asaguna oo hadda ma haddu kula sameyn yahay inaad qabasho u baahan yahay inaad wax ka qabsato u baahan yahay iyo wax soo socda oo kay dhigasho u baahan waxaan ku yiri wax tagay oo cimri qaadasho iyo waayo aragnimo kaaga baahan oo inaad wixii ku soo maray dib intaad u xisaabiso wixii khaldamay aad isku daydo inuu saxmo iyo wax hadda jooga oo u baahan wax ka qabsato iyo wax soo socda oo u baahan kay dhigasho inaad u sii diyaar garowdo saddexda way waqtigu haddii marka aadan sidaa u maareyn karin deesad ku noqoto waad kaanaysaa sababta tahay waxaad ku jirtaa qaflad iyo meel maartay mugdi ah nakolla saama lagu jeeri oo waqtiga iyo dadkii iswatay bay ku jeerayaan kolla saama lagu soo jeeri inta hadaan ku dhaafno waxaan rabaa inaynu sheeko yar oo la maareeyay inaynu ku soo khatirno hadalkeena waxa la yiri gabadh iyo wiil baa sheekaystay mudday sheekadu socotay sheeko guurba waxa weeye laga wada hadlayay xudashada in baan socotay haasawaha socday meel badan baa lagu kulmay oo dhaantooyinku u badan yihiin gabadhii wiilkii waxay ku heshiyeen in heer agleelaan oo qoys sameeyaan oo ay isguursadaan waxa lagu ballamay xilliga uu gugu doo roobku aad dhigo dhulku barwaaqo noqdo xooluhu darraan baliyadu buuxsamaan ee la nasto xilliga hayno noqotaa leeyahay waayahay bay gabadhii wiilkii ku kala tageen xilligaasina diraac bay ahayd isla kaleeshiiba oo roobkii intuu daadaay kaynaankii lagu jiro oo qaba meel loo guurayo oo san wali cidii iyo xoolihii maarta ayaan dhargin ayuu labadii reer dhibka dhaxdhacayo gabadhii reerkoodii baa rag laga laayay halka bahal colaada ayaa ka tolantay reeri waa la kala guuray colaad baa loo kala faadumaystay reerba meel buu u guuray si loo soo diyaariyo duulaamo iyo dagaal waxaan maqli jiray jacayl xaasid ma waaye labadii ballantii u taalay arintoodii way cakirantay leesuma tagi karo aabba uu leeyahay intuu u yimaado gabadhii reerkooda inuu shukaansi ugu yimaado iska wadaay xataa bilaanta hadii la arko waranka ka cabaya dhiigiisa takala waa la kala fogaaday waxa u dhaxeeya dhul la yiraahdo aftoolin ah oo waxa weeye ilaaladu ay saa u gaala baxayso oo ninkii marayaba kurka la goynayo ayaa u dhaxayso libaax iyo waraabuhuna soo daayay wiilkii uu golongalay jacayl buu la golongalay la walbahaaray seexan waay wareegaystay ninka soo uu sheego in adeerkii oo yiraahdo gabadhaas aan balan lahayn warnaga u mudhi walaa ku dhaay soo raga dhintay ma ogid innagaaba ku jirna waxa weeye
difaac iyo goorma layna warjeefi doonaaye nuguur baa meesha ila warar naga amal odhan asaguna dee waxba haysto oo nin jacayl ku maran yahay weeye warkaasi oo ma dhaadhacayo wuu fikiraa wuxuu qodaa wuu wareeray wuxuu go'aansaday maalinka dambe gabadha ilaa inuu u tago keligii waa waqti fogoo caagadi ma jirtee bartii buu ka soo lugeeyey habeen iyo maalin buu soo lugeynayay reerihii buu dul yimid ay gabadhu heerkoodu ka midka ahaayeen korkaasuu ka weeqaaray qofna ma weydiin karo qofna isma soo tusi karo wuxuu rabaa un iyadii keliya ah inuu arko un dhowr maalmood buu meelaha wareegaysanayay gaajo oon iyo rafaad buu haway la gubtay waa nasiibe maalin dambe oo xilli galab ah iyadoo awr soo doontay gabadhu la socoto ayuu ilqoodhka meel ka arkay wuu soo dhuutaalayay gabadhii iyadii oo intay kala leexdeen laba rati ay kala leexdeen ayuu soo ag istaagay gabadhii way naxday haddana way faraxday maxaa sheegtay buu yidhi gabadhii dhan way faraxday haddee waa ninkii rabtay dhanna way naxday waxay istiri kani malagii baa galay maxaa ku soo qaaday la qaad ma malakumudkaaga baa soo raadsatay maxaad soo doontay waxa ka baxo ballan baan lahayne ballanteeni goormaynu dhamaynaa waxay tiri hadal kuma odhan kara gabadh bay la socotee bal caawa geedkaa halka ku yaallay sidaas aan kugu imanayaa waxa weeye halkaas joog oo bar 3 saac 4 saac aan ku imanayaa telefoon ma jiro oo waxba ma jiro waa yahay buu yidhi ninkan ilaa 3 beri buu qatan yahay oon iyo gaaja ka kasiis gabadhii labadii gabdhood awrtii way soo dheelmeen heerkii way soo aadeen asna uu soo daba dhuutaalayay geedkii buu galay gabalkii waa madoobaaday saama waa imanaysa gabadhii ilaan gabadhii rag dhalinyaro oo fara badan oo reerkooda amba u socowaysan doontay oo si ay uga baxdaa ma garanayso soo dhuutaalayay ardaagay ka yoomayeen ayuu muskiisa soo galay gabadh feeyigii bay ahayd aad bay u faydhoonayd waxbay dhagteedii iyo waxbaa la socday waxay artay ninkii oo halkaas oo dadabadeeda ah yuurursaday wax dhagaysanaya way naxday ragana hadday ninkan arkaan way kala goynayaanba cadcad baa loo goosan sheekay markaa aliftay baal sheeka ah ayay aliftay ilaa maqribkii hore ayay intay haan caana qaaday meel dhigtay oo wax diyaarisay oo rabtay inay baxdo si u baxday laadahay waxay tiri sheekan idin sheegaya wiilsha u sheekaynaysa laakiin asagay rabtaa inay fahamsiiso waa hal dhaha moogtay sul dhawaale waa hadal haddana waa si gooni haddana baq fahmi karin waxaway aday ku taalaay sheekay aliftay waxay tiri gabadh iyo wiil baa sheekaystay iyagoo raba inay isguursadaan oo diraacda markay ka baxaan inay isguursadaan baa labadii reer islaayeen ninkii gabadhii buu soo baydho heerkoodii buu yimaaday haddii indha la saarana waa la kala goyni gabadhii uu rabay ayay is arkeenoo waxay ku tiri fiidkii baan ku imanayaa way ka soo daahdo meel ay soo martay garan weyday kadibna iyadoo la fadhida rag nadeertooda ayuu soo kor fadhiistay deedna waxay ku tiri warhooy nin malgii galaad u eg tahaye intaad meesha ka kacdo geedka magoogeehe ka dambeeya reerka halkaas ku yaalla caanaha ku jira dheesha ee kofta ku xaseeyey intaad cabto oo iyadaba haddaad doonto qaadato meel heblaaya tag berri barqankii baan ku imanayaa waan israacaynaa ka warramayta arrintaas qosob baa la isku darayo wallaahi waa kaarta khatara deedna maxay samaysay sidii buu sameeyey caanihiina wuu cabay ballantiina sidii buu u oofiyey kadibna gabadhiina way u tagto way israaceen bay tiri hadalkii markaa dib uu fahmay waa naqli badane halkii buu firac ka yidhi oo dhiishiisii buu la booda meeshii buu caanihii ayr iska cabay gabadhii way artay asagoo kacay way dareentay marka inuu fahmay baaqaas habeenkii mayna dhaqaaqeen sheekadii iska waday aroortiina xoolihii bay wax ka dhistay oo ciddii dareerisay way isdiyaarisay bartii asagoo ku dhuumanaya ayay u tagtay sidii marka la isu raacayoo gabadhii wiilkii ay isula baxeen sheekada halkaasay ku eg tahay xalka dambe ee guurka maanan mayn inoo soo gaadhin laakiin ujeedka laga leeyahay waxay tahay suul dhawaale waa hadal haddana waa si gooni ah waa inaad fahmi kartaa qofkan aad wada joogtaan ama aad wada fadhidaan ama aad wada shaqaynaysaan afjaaqiina
وأين لغو حسري لغو شيغو سida babcaan ee lagu sheegay inaad fahamtaa wuxuu yiri hadaan gabayga saab ugu jira saafan hadaan gabayga saab ugu rido saafan mahaya hadaan gabayga soo duuduuban siiyo dadka kala dhigan kare maayaan buu marka waa inaad adoo kala dhigataa hadii gacanta ma lagu jiidi intaan ku dayno